Sabanadii hore ka mid ah ayaa waxaa laga qiseeyay waxaa jiri jiray nin boqor ah oo ka talin jiray boqortooyadii Roomaanka. Boqorkaas oo lagu magacaabi jiray Boqor Yuunaan. Waxa uu ahaa boqor aad iyo aad u wanaagsan, hanti badanna iska leh, magacna ku dhex leh bulshada dhexdeeda. Xukunkiisana uu ummad dhan dhul badan gaaray. saasay tahay farxadiisii waxaa nusqaamiyey boqorkii. Waxaa ku dhacay cudurkaas oo baras ahaa, kaas oo loo taag waayey. Dhakhaatiirtii ka agdhoweedna ay ka quusteen in ay daaweeyaan. Boqorkiina waxay ku noqotay arrin murugo leh. Kadibna wuxuu iska galay gurigiisii isaga oo murugaysan. Dadka la kulankoodiina waa uu ka cararay. Magaaladii Boqor Yuunaan oo ka talin jiray ayaa waxaa soo gaaray nin xakiim ah, caqli badan, daawada dhirtana wax ka yaqaano oo lagu magacaabi jiray Dunaan. Markii magaalada uu soo gaaray ayaa mooyin uu joogay ayaa waxa uu maqlay arrinta boqorka iyo dhibaatada haysato iyo sida uu dadka uga cararay oo bulshadii magaalada ay ku sheegaysanayaan. Kadib Dunaan waxa uu aaday in uu la kulmo boqorkii. Boqorkii markii uu u tagay oo la sheekaystay oo ogaadayna xanuunka uu haya iyo daawadiisii ayuu waxa uu yiraahday, boqorow, aniga waxaan doonayaa in aan ku daaweeyo. Boqorkiina waa uu yeelay, ileen horey ayaa waxaa loo yiraahday nin buka boqol u talisaye. Boqorkiina waxa uu ku yiraahday, haddii aad daawooyinka taqaanid, xilliga aad rabtid ayaad bilaaban kartaa daaweyntaada. Ninkiina waxa uu ku jawaabay, biri ayaan bilaabaynaa daawadeyna. Waana uu iska tegay. Waxa uu soo gurtay dhirtiisii iyo wixiisii ayuu soo habeystay. Bahal kubad camal u ahna waa uu soo samaystay. Waxa uu u imaaday boqorkii maalinkii dambe. Waxa uu ku yiraahday, maanta ayaan shaqadeena bilaabaynaa, keen waxaan aadaynaa dhulka bannaanka iyo xeebaha. Boqorkii waa uu soo raacay, wasiiradiisiina waa uu soo watay. Waxa uu dhiibay bahashii kubadda camal ahayd. Wuxuu yiraahday, kubaddan maanta oo dhan waa inaad ku ciyaartaa ood ku dhedheeshaa oo gacantaada ku haysataa. Kadib boqorkii bahashiisii ula orday marba oo sidii samayn lahaa u sameynayay. Maalinkii galabtii waxa uu ku soo noqday gurigiisii. Habeenkiina waxa uu ku seexday si nabad ah ayuu ku seexday. Boqorkii subaxdii markii uu soo kacay waxa uu la yaabay waxa uu arkay arrin aad iyo aad u la cajabay oo noola yaabay, farxadna gelisay. Oo wuxuu arkay xanuunkii hayay oo dhanba waa uu baaba'ay, oo wax calaamad ah jirkiisa kama ay muuqato. Dadkii oo dhanna arrintii ayay gaartay oo waa isgaarsiiyeen oo boqorkii waa uu fiicnaaday. Dadkii ka agdhowaa boqorkana waa ay farxad gelisay oo boqorkii ayay farxaddii la qaybsanayeen. Kadibna waxaa imaaday xakiimkii daaweeyey boqorkii. Markii uu boqorkii ogaaday inuu caafimaaday, aad ayuu asagana ugu farxay. Boqorkii ninkii ayuu u mahad celiyey oo waa uu dhunkooday oo martiqaad aad iyo aad u weyn ayuu u sameeyey. Waxauna yiraahday, dadka dhan ha loo sheego, maanta waxaan qabnaa xaflad. Sidoo kale waxa uu siiyey hanti aad iyo aad u fara badan ayuu siiyey. Waxa uuna yiraahday, gurigiisa ha la geeyo. Boqorka maalintaas wixii ka dambeeyay ninkii waxa uu hayay xurmad aad u weyn ayuu u hayay. Waa uu soo dhaweystay oo agtiisa lagama weyn jirin. Wax kasta oo talo ah ee ku soo kordhana waa uu la qaybsan jiray oo wuxuu weydiin jiray waxa laga sameynayo. Boqorka dadkii ka agdhowaa kuwa xaasidiinta ahaa aad iyo aad ayay u necbaadeen oo ma aysan farxad gelin. Waxaa jiray nin wasiir ah oo boqorka ka agdhowaan jiray, kaas oo ahaa nin aad iyo aad u baqiilsan, aadna xaasid u ah, aan arki karin waxaan isaga ahayn oo faraxsan. Wuxuuna ka murkooday ninkan oo maalinba maalinta ka dambeysa boqorka agtiisa ku sii weynaanayo. Waxa uu yimaaday boqorkii. Waxa uu ku yiraahday, boqorow, waxaan u jeedaa in aad qaldan tahay oo nin cadowgaaga ah hoostaada aad soo gashatay adiga oo doonayo in uu ku dilo. Boqorkii ayaa yiraahday, waa maxay ninka aniga cadowgayga ah ee doonayo in uu dilo? Wasiirkii ayaa u jawaabay boqorkii, ninka ku dili rabo waa xaakim Dunaan. Boqorkii ayaa yiraahday, ma ninkii aniga i daaweeyey ah? Wasiirkiina wuxuu ku jawaabay, haa, waa ninkaas. Boqorkii ayaa yiraahday, ninkaas waa nin wanaagsan, wuu i daaweeyey asagoo waxba i cabsiinin ayuu i daaweeyey.
laakiin wasiirka ayaa ku jawaabay haa waa arrintaa laakiin ninkii adoo wax cabitaan ah aan ku siinin daawo aan ku cabsiinin oo ku cunsiin ku daaweeyay taabashadeeda keliya daabashadeedana waa uu kugu dili karaa anigu waxaan isleeyahay ninkan wax kale maaha waa nin ruufyaan ah naloo soo diray in uu annagana baabi'iyo boqorkiina waa uu ka diiday laakiin marar badan markii uu ku celshay boqorkii arrintii run ayay la noqotay oo wuxuu yidhaahday waayahee sideen aan uga badbaadaynaa shartiisa laakiin wasiirkii ayaa yidhaahday ninkan waxaan uga badbaadi karnaa hal mar u wac madaxana ka goy asagoo dhan shartiisana halkaas ayay inooga haraysaa boqorkii arrintii ayuu la dhacay askartii ayuu u wacay waxa uuna ku yidhaahday dunaan ii keena markii loo keenay ayuu waxa uu ku yidhaahday ma dareensan tahay waxa aan kugu wacay waxa ugu jawaabay maya laakiin agtaada waxaan ka rajaynayaa kheyr boqorkii ayaa ugu jawaabay waxaan kugu wacay in maanta madaxa laga gooyo ninkii ayaa ugu jawaabay boqorow maxaa dembi ah oon kalabsaday oon halleeyay oo la ii dilayaa boqorkii ayaa ugu jawaabay waxayna kaaga shakiynay in aad ruufyaan tahay oona dib noo soo wadid aanadna dili rabtid ninkii ayaa yidhaahday boqorow aniga nin wanaagsan ayaan ahay wanaag ayaan kuu sameeyey adiga oo xanuun tacbaan la ah oo magaaladii dhan ka cararay ayaan ku daaweeyey ma abaalkayga waxa ay noqotay in la ii dilo boqorkii waxa uu yidhaahday waa lama huraan in lagu dilo sababtoo ah waxaan doonaynaa in aan nafsadeenna iyo boqortooyadeenna ay nabadgelyo hesho ninkii markii uu ogaaday marnaba inaan la daayin doonin ayuu waxa uu ku jawaabay boqorow waayahee ii fasax in aan hal mar gurigayga gaaro oon hantidaydii kasoo dardaarmo soona kala qaybiyo halka buug asraartayda ku jirtana aan adiga hadiid ahaan kugu siiyo hadiidii u dambeysay sababtoo ah hadhowdi markaa ay dishid madaxayga goysid madaxayga ayaa kula hadli doono madaxaygana wuxuu ka sheekeyn doonaa buugga sirta ku qoran qofkii haysta keliya ayaana asraarta buuggaas ku qoran fahmi karo boqorkii ayaa yidhaahday ma madaxaaga ayaa hadli doono haa wuu hadli doonaa oo 3 maalin ayuu kuu sheekeyn doonaa buuggan hadda haysatid wax kastoo ku qoranna asaga ayaa kuu sheegi doono boqorkii iyo askartii ayuu ku daray ninkan gurigiisa geeya howlihiisa soo dhammaysto asaga iyo buuggana iisoo qaada kadib ninkii waa u baxay gurigiisii ayaa la geeyey buuggii uu sheegayay ayuu soo qaaday wuxuu kusoo sameeyeyba kadibna waxaa loo soo celshay boqorkii buuggii bagii koowaad ayuu akhriyey wax qoraal ah kuma qorneen wuxuu ku jawaabay buuggan wax qoraal ah oo ku qoran ma leh waa waraaq cad ninkiina wuxuu ku yahay haa waa sirta buugga ku jirto buugga dhan wada akhri kadibna marka ay dishay madaxayga ayaa kula hadli doono oo waraaq kasta oo cad oo had aad fiirisay oo wax aad ka weysay waxa dhowd ku qoran madaxayga ayaa ku sheegi doono muddo 7 bari ah qaado inta aanan idilin boqorkii arrintii ayuu yeelay oo marwaa bag ayuu fiirinayay ninkiina waxaa loo soo celshay gurigiisii in uu sii joogo 7daas bari laakiin buugga waa uu sumaysnaa oo markuu dhowr maalinba akhriyay boqorkii waa uu iska dhintay oo suntii ayaa saanka iyo afkaba ka gashay ninkiina sidii ayuu ku nabad galay oo cid kaloo dib u soo raacatayna ma leheen halkaas ayay qiisadeena ay noogu dhammaatay haddaad qiisadeena aad ka heshay fadlan subscribe adigu wax kuma dhibeyso annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته